markasta oo aan arko inankan waxa aan dib u xasuustaa dhacdadiina soo kala dhexmartay dhowr sano ka hor. Waxa aad moodaa in ay shalay ahayd. Ninkani waa nin dhalinyaro ah, inuu iga weynaado mooye igama yara. Waa nin ay karti ka muuqato, waana nin wax bartay sida uu eeg yahay. Ninkani waligay sheeko namay dhexmarin oo isma naqaano inaan meelaha isku aragno mooye. Subaxanigoo meel maqaaxi ah kaga sheehaya ayuu ila soo fadhiistay. Kadib salaam diiran iyo dafdaf aan caadi ahayn oo socotay ku dhowaad ilaa 30 daqiiqo. Waxa uu sheekadiisii ku soo afjaray isagoo dhegta ii saaray. Walaal, mawlka ayaa iga xunee $2 oo iga dhiman igu caawi. Aniguna waan siiyay maalinkaas ayaa ahaa kii noogu horeeyay nooguna dambeeyay ee aanu is salaano. Maalin walba waanu is aragnaa inta badan. Horta waa su'aale, maxaa farqi u dhaxeeya dawarsiga iyo shaxaadkaba? miyaanay labaduba ahayn qof kale wax weydiiso oo gacanta hoose yeelo, isaguna gacanta sare ha yeesho? waa wax laga xumaado in dhalinyarteenu inta badan oo ka mid ahi in ay noqdeen dawarsato ku dulnoo dadka kale, iyaga oo xoog iyo aqoon iyo farsamo wax ka maqani ay jirin. Haddaba ma kuwaas ayaa dalkeena meel gaarsiin doona? iyaga ayaa isku fillaan waayay. Haddaba waxa uu rasuulkeenu Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ina baray in qofka dadka wax weydiista uu imaanayo maalinka qiyaamaha isagoo aan wax hiliba aan saarnayn wejigiisa. saaxiib shaxad badne ogow maalinta qiyaamaha falxumadaas ayaa kuu taal, adduunkana cid kuma jeclaan doonto. is ogow saaxiib, shaxaadkana iska daa.